الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيام المالمها كميد الصحابة وحو كيري قيامة وحا كسوه الرية وحلينا هذا هرجي waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay harji maxaa la yidhaahdaa. wuxuu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam waa been iyo layn dadka la laayo. been iyo dacaayad iyo layn. waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay ow ma laynta hadda aan hayna mid ka badan ba. waxay ahaayeen ridwaanullaahi calayhim jihaad bay ku jireen, cadowgooday la dagaalamayeen, kelimada ilaahay bay kor yeelayeen, diintay faafinayeen. ma kan hadda aan hayno mid ka badan ba midka qiyaamada horteeda imaan doona. layntaasi ma tanay ka badan tahay? nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam waxaan ka hadlayeen idin sheegaya ma aha laynta aad cadowgiina iyo gaalada laynaysaan maaha, sida maaha. laakiin waxaan ka hadlaya ee markay qiyaamadu soo dhawaato badan doona waa dilka dhexdiina aad isdilaysaan. idinkii iimaanka lahaa ee mu'miniinta ahaa dhexdiina ood islaysaan waa kaasaa badan doona buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markastoo qiyaamadu soo dhawaato. markaasaa nabigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi heerka ay gaadhi doonto markuu tilmaamaya laynta dhexdiina ah ilaa uu ninku dilo dariskiisa. dariskiisu aamin ka noqon maayo, dariskiisuu dilaya. walaalkii buu dilaya, walaalkiisii isku hooyo isku aabad ahayn buu dilaya. adeerkii buu dilaya, waalidka uu ahaa. in adeerkii buu dilayaa iyo cashiiradii iyo qoyskii hoose. wuxuu baajinaya ma jiro. dariskii dil, walaalkii dil, adeerkii dil, in adeerkii dil. intii ugu sokaysay iyo sokeeyihii hadduu laayo ama daris ahaan ugu sokeeyey ama dhalasho ahaan ugu sokeeyey yuu baajinayaa waaye. intii kale waa kasii xag jirta. waxay weydiiyeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim, subxaana allah, waa la yaab rasuul ilaahi, waa la yaab. dariskaaga ku noqo oo adeerkaa dil oo walaalkaa dil oo in adeerkaa dil oo xigtadii dil. rasuulka ilaahi waa la yaab. subxaana allah, waa shay weyn, waa shay lala yaabo. macanaa cuquulunaa, marka aan saas samaynayno caqliganagii ma nagu jiraa? caqli miyaan leenahay markaa mise waa waalanay? nabigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh lianna caqli ruux lahoo garasho leh waxaan ma sameeyo, dariskiisa kuma noqdo, eheladiisa iyo qaraabada kuma noqdo. caqliganagii markaa ma joogaa? nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam maya. dadka xilligaa jira ee waxaa samaynaya cuquushoodaa la siibayaa buu nabi yidhi sal alla alay wasalam, caqligaa laga saarayaa. waa caqli la-aan marka, waa xoolo islaynaya waa dibin laysku fasaxay waa. garashadii iyo caqligii wax xakamayn lahaa oo faa'iidada iyo khasaaraha kala garan lahaa oo waxaani dhibka ka imaan kara qiyaasi lahaa oo ku xakamayn lahaayoo celin lahaabaa meesha laga siibay. waa qalfoof taagan way marka. bini aadam baa loo egyahay, jidhku waa bini aadam, waa taagan yahay, waa cunayaa, waa cabbayaa, laakiin caqligii aadamaha ka soocaya xayawaanaadka kaa waa laga siibay, garasho ma leh. ilaa nabigu yidhahda sal alla alay wasalam heer wuxuu gaadhayaa midkood uu isleeyahay xaq baad ku sugan tahay, waxna kuma sugna buu nabi sal alla alay wasalam. markuu saa wax u gelaya waa isla quman yahay, qumanihiisaa qoorta ugu jira. koox buu ka socdaayoo kooxdiisu u arkaa inay xaq leedahay, dadka kalena daalimiin yihiin. qoys iyo reer buu ka socdaayoo wuxuu u arkaa inay xaq leeyihiin, lagana gardaran yahay. bal waxaa laga yaabaaba inuu daliil daliishanayo oo uu leeyahay
siday qabaa'ishu sameeyaan markay islaynayaan iyo ururada iyo siyaasiyiinta in qur'aanka iyo sunnada la luqunji baadho oo dulmigii lagu sugnaayo loo daliishado oo kii sida caqli la'aanta u ahaaye fasaad ka waday laga dhigo shahiid laga dhigo reerka difaacaysa nabi maxamedna wuxuu yidhi ruuxii isagoo xoolihiisa iyo naftiisa difaacanaya la dilo waa shahiid xadiidku waa sax laakiin kelimatu xaqin uriida biha baatil waay kelimadu waa sax nabi maxamedna waa yidhi laakiin fitankan kuma saabsana maxaa adiga madluum kaa dhigay dulmisan dadka kalena daalimiin ka dhigay daalimiin baad wada tihiin waa ka nabigu yidhi sal alla alayh wasalam ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar muslimku hadduuba isku kaco oo islaynayo oo qabaa'ishu ay islaynayaan deegaan baa la isku laynayaa war dadka dhulku waa wada deeqaa alam najcal ilarda kifaatan axyaa'an wa amwaata war dhulkan miyaana idinka dhigin mid idinku filan haddaad geeriyootaanna hoostiisaa idin qaada haddaad nooshihiinna korkiisu waa idinku filan yahay goormuu dhulku dadka deeqi waaya marka meel yar iyo tuulo yar la isku laynayo ya maya ree hebel waa inaan iska celinno laa qaaliba walaa maqluub mid adkaaday ma jiro mid laga adkaadayna ma jiro cuquud 10 sana la islaynayay billaahi calaykum maxaa laga dheefay mal faa'ida maxaa laga faa'iiday maxaase la isu laynayaa caqligii baa baxay garashadii baa baxday cibradii baa baxday waxaan duruustan bannaanka taalla een u baahnayn ruux wax akhrin kara keliya ee caamaygu akhrinayo limaada looga faa'iidaysan lahay limaada waxaan u istaagi laayihiin lianna waxa way cuquushii baa maqan nebi maxamed baa sii sheegay salawaatu rabbi wasalaamu cuquushii la siib saas daraaddeed lama garanayo meel loo socdayo meel laga socdo wuxuu nabigeennu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaahay baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku jirtee dadka waxaa soo mari doonoo ku imaan doona zaman iyo waqti baa imaan doona ka wax dilayana uusan ogayn sababtu wax u dilayo ka la dilayna uusan ogayn sababta loo dilay waataan hadda noolahay qaybo ka mid yaa caalamka maxaa ka socda caalamka muslimiinta gaar ahaan maxaa ka socda deegaamadan aynu ku noolahay maxaa ka socda tukarraq maxaa yeelay war tukarraq maxaa yeelay ya tuulo intaasoo dhiigin u daato intaasoo ciidamo laysu keeno intaasoo hub layska hor keeno intaasoo ruux ku baxo intaas lagu qaxiyo war maxaa yaala ma isweydiin kartaa qab iyo kibir iyo annagaa adag iyo annagaa leh iyo annagaa lahaan jirnay mal faa'iida sootii 10 sano lagu soo jiray lagu jabay maaha ya maxaa sool yaalla ilmaadeerkan isku baaba'ay 70 ruux hal mar in la dhigo oo muslimiin ah war maxaa yaalla maxaa laga faa'iiday billahi calayk ka xagga ka soo jeeday ka xagga ka soo jeeda waa ilmaadeer waa isku deegaan waa dad wada dhashay waa dad muslimiin ah maxaa laga faa'iiday 10 sanada la kala hayay war kala jooga maxaa laga faa'iiday billahi calayk ya maxaa laga faa'iiday cuquushi aaway garashadii aaway wax laga faa'iiday ma jiro bari iyo koonfur iyo galbeedba Soomaali waa isrogtay maxaynu ka faa'iidnay qaran duma qax burbur dil aakhiriya adduun la'aan gumaysi iyo dullinimo maxaa laga faa'iiday aaway faa'iidadii afala ta'qiluun afala ta'tabiruun afala tatafakkarun aaway fikirkii aaway fahamkii aaway ictibaartii aaway waxaad garanaysaa meesha caqli ma jiro caqligii wax lagu fahmi lahaa ma jiro waa la siibay nabi maxamed baa saa inoo sheegaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh halkan Itoobiya gudaheeda Soomaali iyo Oromo waa laba dad oo muslimiin ah waqti dheer boqolaal sanay deris ahaayeen derisnimo ku wada noolaayeen maxaa dhex dhigay fitankan maxaa dhex dhigay yaase ka faa'iiday axdaasta noocaasa inteeda badan waa musayasa siyaasad bay salka ku haysaa rag baana ka ganacsanayo ka baac mushtaraya oo ay ka tustay
dhiigga muslimiinta iyo aadamaha daadanaya inay kuraas ku gaadhaan oo jago ku helaan oday dhaqameed kursigiisa ku ilaashanaya siyaasi doonaya inuu magac iyo kursi ku helo dhiigga iyo ummadaha isku baaba'aya waa intaa waay dadkiina waxay noqdeen sidii baalalay inta la qabto dab lagu daadiyo xaaba la soo guro dabka lagu shubo oo lagu danaystay noqdeen fahamkii caqligay wax ku garan lahaayeen oo cadawgooda iyo midka danaystaha ay ku garan lahaayeen ma jirto war dhiigga daadanaya waa dhib war dunuub horoo la galay buu ka dhashay war mid kaloo soo socotaa jiro waxa masaa'ib kala soo socota war dhiigga daadanaya hala joojiyo war fasaadkan ha laga hortago war ololaha laga wado warbaahinta hala joojiyo ololaha laga wado saakadan anoo diyaarinaya khudbada diyaarinaya mawduuc kale ku saabsanay su'aal baa ii soo dhacay nin baa weydiinay wuxuu leeyahay sheekhow reerkaygii reer kala islaynaya meeshaan joogay baa qaaraan laga ururinaya qaaraanka waxaa lagu iibinayaa hubkii reerku wax isaga dhicin lahaa anigana waxaa la yidhi qaaraanka keen haddaan qaaraanka keeni waayana waa lay goyn oo hadalkaa layga goosan oo waxba layla bixin maayo oo waa lay takooriyo tuka cambaar le baan noqon cudurdaar ma leeyahay inaan qaaraankaa bixiyo daruuro ma tahay warbaahinta social media ololaha ka socda hub ururinta dhaqaale ururinta shilin ninkii ku darsada shilin dhiigga muslimka meeshuu ka geli lahaa maalinta qiyaamada isaga garanaya hal kelimo oo taageero ah ninkii ku darsada ilaahay hortiisa markuu soo istaago dhuunta lagu dhago oo uu yidhaahdo rabbiyow kana ka qayb qaatay dilkii lay dilay meeshaad geli lahadaa garanaya adduunna khasaartay oo faa'iido ma hayso tolkaabaad isku laysay aakharana khasaartay oo naar baad ku gasho janno weyday lianna ilaahay agtiisa dunuubta laga galo shirki marka laga yimaado waxaa ugu weyn dhiig muslim oo la daadiyo malaa'igta rabbi tabaaraka wa tacaala markuu alla u sheegayo ku yidhi malaa'igay dhulkan cid ka taliso u kala dambayso bini aadamaan ku abuurayaa markuu alla yidhi aadam markii la abuurayo waay malaa'igtu su'aal bay alla weydiisay waxay yidhahdeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa allow dhulkan dhexdiisa ma waxaad ku abuuri cid dhulka fasaadisa dhiigna ku daadisa malaa'igtu waxay ogaatay aadamuhu inuu dhiig daadin doono haddii dhulkan la keeno waxa la yaab kale waxay tahay iyo dilaalada aayaddu ay ku tusayso dhulkoo la fasaadiyo wuxuu ku fasaado waa dunuubta shirkiga u weyn malaa'igtu markay dunuubtii guud sheegtay si gaara waxay u magacawday ku dhufatay ay gooni u sheegtay dunuubtaasi kuwa ugu sii waaweyn ee fasaadka ugu fara badan ka dhasho waana dhiigoo la daadiyo waay wayasfiku dimaa zinadii mayna sheegin gooni mayna u sheegin ribadii gooni mayna u sheegin xaqdarro xoolo lagu cuno gooni mayna u sheegin waxay gooni malaa'igtu u soo saartay waxay wayasfiku dimaa dhiig bay daadin doonaan dembi ilaahay laga galo bacda shirki waxaa ugu weyn dhiig muslim oo la daadiyo baxsanna maysa sidaas daraaddeed waxaa waajib inuga walaalayaal waxyaalaha noocaas oo kalea markay dhashaan deegaankan aan joogno kaynu ka soo jeednay meel walba oo aynu ku leenahay kelimo ku leenahay ama lug ku leenahay waajibku waxa weeye in la taageero sawdka dadka wax islaaxinaya dadka ummadda isu keenaya dadka dabka daminaya in la taageero waa laga maarmaan waajibkii xilka ina saarana kaawa sax shaydaanku waa ka dhex shaqayn karaa laba ruux oo muslima waa isku diri karaa waa isku dili karaa laakiin ilaahay wuxuu leeyahay intiina kale waxaad isu taagtaan inaad islaaxisaan inaad hagaajisaan inaad isu keentaan juhdi ku bixiya aaway dhaqaale maxaa loogu ururin waaye dadkan in la islaaxiyo meesha loo ururinayo dabku inuu shidmo culimaa isu xilqaantay akhyaar baa isu xilqaantay dadaalaa socda kuwa horay loo sameeyey waxaa loo baahanyay intaa la taageero allah wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala laba kooxood oo mu'miniina hadday islaayaan waa mu'miniin gaalo ma aha alla wuxuu leeyahay dhexdooda heshiisiyo islaaxiyo mu'miniintu waa walaalee mushkilada dhexdooda soo gashay hagaajiyo islaaxiya oo isu keena oo mushkilada ka saara buu alla leeyahay tabaaraka wa tacaala intaa la taageero oo la dacmiyo
oo mushkiladani siday u dameeyla laga shaqeeyaa laga maarmaan ah amma in mushkilada laga qayb qaatay maya siyaasiga ay ka tustay kursigu ka tusay dhiigga muslimiintu isku laayowna waxaan ku leeyahay kuwii baabka bilaabay maanta khasaarsan allow ya hebel iyo hebel oo qubuurta ku jira maanta soo warsada raggii dalka dumiyay oo qabaa'isha isku diray oo ummadda kala dilay oo ka ganacsaday oo kursiga ku raadsaday oo maanta dhulka ka hooseeya yaa soo warsada maanta siyaasiga jidkoodii hayowna waxaad ogaataa meeshaad ku dambaynto waa halkaas marnaba ku guulaysan maysid dhiig muslimood u daadisay kursi iyo siyaasad iyo madaxnimo u daadisay ku guulaysan maysid ummadana waxaan leeyahay garta nidka idinku danaysanaya iyo midka dantiina wada kala garta maslaxadana xoojiya dagaalku markuu bilow yahay wuxuu ku tilmaamay al-Imam Bukhari alayhi rahmatullah wuxuu yiri salafku ridwanullahi alayhim waxay jeclaan jireen markay fitanku kacaan in ay soo qaataan abyaad nin gabaya oo jahili oo imrul qays la dhihi jiray gabayaan uu ka tagay hadal murti ah bay jeclaan jireen culimada salafku inay soo qaataan markay fitanku kacaan abyaadaasi xikma ku jirta wuxuu leeyahay oo macnuhu yahay dagaalku marka ugu horeyso uu bilow yahay gabadh yar oo dhalinyaro ah oo qurux badan buu eegay gabadhaasi waxay isu qurxinaysaa mid kasta oo jaahil ah oo aan aqoon lahayn garasho lahayn markay isqurxiso siina quruxsanayd indhuhu la raacaya nin walba wuxuu rabaa inuu meel ka gaaro ka uu yar wuxuu rabaa inuu taabto wuxuu rabaa inuu dhunkado wuxuu rabaa inuu guursado wuxuu rabaa inuu la kulmo la sheekaysto way isqurxisay nin walbana wuxuu leeyahay qaybtaada ka qaado markii dabku huro fidnadu balaarato oo lagu gubto oo lagu baabao oo midhaheedii xumaan la taabtay natiijadeedii xumaan marka waxay noqonaysaa buri isu bedelaysaa habar nin la'aan oo kala habar duqa oo cirowday oo timuhu cadaadeen oo aan nin lahayn oo midabkeedii quruxsanaa isbedelay oo haddana urtay oo nin walba kahanayo inuu ursado ama dhunkado uu kahanayo wax la yaab leh ayadoo urtay oo isbedeshay oo kharibantay oo dal baabi'isay oo dhiig daadisay oo caruur agoomaysay oo aan waxba hambaynin oo natiijadeedii aan hayno yaan haddana doonaynaa sii wadnaa inaan dhunkanaan doonaynaa inaan ursanaan doonaynaa inaan ka qayb qaadanaan doonaynaa war natiijadeedii way soo baxday maad kuwaana qaadataan oo darsi ku qaadataan oo dabkan socda ma la joojiyo ka wada mu joojiyo ka kalena sidoo ku baabila ku damilaha maynu ka qayb qaadana waajib sharci way xil iyo mas'uuliyadiina saaran way hawshaas in laga wada qayb qaato kuwa isku fitnoobay ee wada dhashay ee walaalaha isku diinta ana waxaan leeyahay ilaahay ka yaaba oo waxaan joojiya oo fitanka joojiya oo ka faa'iidimaysaan oo kala adkaan maysaan oo Soomaali qabaa'isheedii baa kala adkaan weyday oo qeyrkood baa kala adkaan waay dhiig kasta haduu daatay reer walba meeshu deganaa buu degan yahay war maxaa laga faa'iido hatta hadda dulmiga meel uu ku faa'iido maadan faa'iido reer ka adkaadi ma jiro kii ugu yaraa laga adkaan waay reerkii ugu dad yaraa laga adkaan kari waay la ghaaliba wala maghlub faa'iida la'aan waay dhinac walba markaad ka fiiriso wax faa'iido ma leh taqullah صلوا وسلموا على خاتم النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك